maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa waxa ay maanta oo Isniin si wada jir ah u shaaciyeen warmutiyada ay ka soo saareen shirkii wada tashiga ahaa ee labada dhinac Sabtigi toddobaadkan kaga furmay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. warmutiyadkan oo ka kooban 3 bog ayaa lagu soo bandhigay 16 qodob oo ka soo baxay shirkii wada tashiga ahaa ee Puntland iyo sidoo kale Jubbaland ee ka qabsoomay magaalada Boosaaso kaas oo sida sheegeen socday muddo 2 maalmood ah Sabti iyo sidoo kale Axad. sidoo kooxda warmutiyadka Jubbaland iyo sidoo kale Puntland waxay si wada jir ah u qaadaceen xeerarka ay meel mariyeen baarlamaanka Soomaaliya ee sharciga badroolka sharciga doorashooyinka kan saxaafadda sidoo kalena hanaanka loo maray dib u eegista dastuurka dalka ayay sidoo kale qaadaceen waxa ay ka digeen in la siyaasadiyo deeqaha caalamka siiyo Soomaaliya arrimaha bulshada barnaamijyada horumarinta iyo sidoo kale duulimaadada reedka waxay cambaarayeen cunaqabateynta xukuumadda federaalka Soomaaliya ay saartay duulimaadada Jubbaland. maamul goboleedyada Jubbaland iyo sidoo kale Puntland ayaa sidoo kale dawladda federaalka ugu baaqay in ay faragelinta ka joojiso dawlad goboleedyada dalka isla markaasna xorriyadiisa ay dib ugu soo celiyaan wasiirkii amniga ee dawlad goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan. dhinaca kale waxay ku baaqeen in shir wada tashi ah ay isugu yimaadaan dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale dawlad goboleedyada dalka si looga wada tashado arrimaha masiiriga ah ee dalka loogana gudbo xaaladaha cakiran ee dalku mariyo. ugu dambeyn maamulada Puntland iyo sidoo kale Jubbaland ayaa waxa ay shaaciyeen inay dhisteen guddiyo iskaashi oo wadaag ah kuwaas oo ka shaqeyn doona hirgelinta iskaashiga dhinaca la dagaalanka argagixisada horumarinta dhaqaalaha tayeynta hay'adaha dawliga iyo federaalinta dalka.